maxaa geed la beero gunta laga biyan jiray gacmuhuna ka daaleen markuu gaadhay heerkii ubax guudka qariya laga guran lahaa midho kii ku gaajo bixila intuu gudmo ula tagay gamka siya xididada ileen good abaal ma leh waa xaruntii xisbiga horteeda waxa sidaad maqlaysay baryahan badee xisbiga waxaan islaa in badan u xil qari laakiin waqtigeedii bay soo gaadhay waa arkaysaan khamiistii baan imi waxaan doonay inaan araajidaydii waagtan shuruudaha laygu xidhay shuruudihiina waan soo buuxiyey waxaan u imi khamiistii askar baan halkan ugu imi askartii way iga celiyeen albaabka markii dambena gudoomiyaha guddiga qabanqaabada xinif baa intuu soo kacay albaabkii hoosta ka xidhay aad baan u garaacnay qoladii gudaha way isqabsadeen guddidii qabanqaabadu waxay isku qabteen labay u kala qaybsameen inuu soo dayno iyo aan inuu soo dayno ilaa saacad baan la joogay war lacagtana iga qabta araajidana iga qabta waxaan u tartamayna waxa gudoomiyaha labaad ee xisbiga kulmiye ee ka tirsan golihiisa dhexe ahay garan maayo dee wax aan ama dee ujeedo ama xeerka xisbiga dee haddaan intii imika la bedelin wuxuu ahaa xisbi dimuqraadi cid kastaana u tartami karto laakiin waan dul qaatay meediana uma sheegin cidna uma sheegin maalintaa hore meesha askar baana riixriixday waana loo diiday inaan dhiibno lacagtiina la iga qabto markii dambe aduna baa soo baxay Axmed Cadarre dibaddu igula hadlo wuxuu iska tag annaga soo dhamaysan annaga isaynee kadib markii dambe waan galo waraaqahaygii waxaygii bay eegeen check baan u dhiibay checkina waxay yiraahdeen ka qaban mayno kaalay sabtidii imika waa kan qof kama joogo meeshana waa cidla waxaan arkayaa ujeedo gaar oo aniga leega leeyuun ama deegaan ahaan dadka ka soo jeediya annagaba naloo jeedo way hoggaanbaan meesha hoggaanka waxaan ku lahayn hal meel waxaan ku lahayn xogeyaha guud xisbiga waxa laga dhigay xogeyaha guud xisbigana nominated in la magacaabo agaasimo waxeeda xaq baan u leenahay inaan hoggaanka marka u tartanno xeerka xisbigana meel ay kaga qorantay reer hebel baa halkaale iyo reer hebel baa halkaale anagu garan mayno magacyo loo kala sameeyay waa ayaan darro weyn oo xisbigii kulmiye ku habsatay in la yiraahdo cid baa loo xidhayaa iyo soo gali maysaan laakiin libaax laba raqood laga wada kiciyo madaxweyne Muuse Bixi haddii aan xukuumaddiisii ku ixtiraamnay raggaygii la shaqeeyay inuu haddana xisbigii agtiisa soo mari maysaan ka yeeli mayno waxaan toogii kuwa waa sida markayna waa kuwan labadaba waan maartay waxaan toogii kuwa kaasay ugu xidhayaan waraaqana waa kan maalinta hore kaash ka soo dhigay kaashina ka soo dhigay garan maayo shadada garan maayo ma garanayo inaguna wareegi laakiin waxaan leeyahay maxaa geed la beero gunta laga biyan jiray gacmuhuna ka daaleen markuu gaadhay heerkii ubax guudka qariya laga guran lahaa midho kii ku gaajo bixila intuu gudmo ula tagay gamka siya xididada ileen good abaal ma leh